tan iyo markii dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee bilowday barakicinta dadka isla markaana ay go'aansatay inay la wareegto dhulkii ay dowladdu lahaayeen waxaa soo baxaya dhibaatooyin aad u fara badan oo ka dhashay arrintaasi hooyooyin caruur ciroole ayaa intaasi cabanaya iyagoo maaragtay aan haysanin hoy ay ku hoydaan iyo meel ay markaasi u ceersadaan maalin walba magaalada muqdisho waxaa la burburiyaa boos ama dhul weyn oo baaxad leh oo runtii la sheego in ay dowladdii federaalka soomaaliya ay lahayd isla markaana ay dowladdu u baahatay laakiin su-aalaha la isweydiin kara ayaa waxa ay tahay dowladdu ha u baahata dhulkaase dowladdu ma martay shuruudihii qaanuuniga ahaa ama dastuuriga ahaa ee dhulalkaasi lagula wareegi lahaa ma jiraa guddigii iibka qaranka markii dadka laga barakiciyey yaa dhulkaasi laga iibiyey dowladdu dadkaasi danguud ma ugu qabatay maxaa dadkii la barakiciya loo qabtay ma waxaa dadkaasi la isaga sii daayey iyadoo aanay jirin wax daba socda oo waxaa la yidhi qof walboo nafta nebiyow ummadda dhaqankan xun oo foosha xun waxa samaynayo madaxweynihii qaranka ummadda Soomaaliyeed ila daawo qofkeeda dhameystira sloogana jira aan lahayn slogankaas muxuu ahay qabyo qofkeeda dhameystira soo hadda qabyadu oo ma wax soo wada dhamaanayo kulli عمرنا على جاب xasan sheekhow mid baan ku leeyahay maanta waa adduunyo berrina waa aakhiro waxaa tahay madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed u dhaartay horeyna waxaad u tiri qabyo ninkeeda dhameystira qabyadu waxay tahayna dadku ummadda Soomaaliyeed waa ogaadeen inaad ulboob iyo dadkii barakac ku haysid taasna waa shay aad iyo aad u foolxun qarankan dhib badan baa laga soo maray dawladda ka horeeyay iyo madaxweynayaal ka horeeyay intaba waxa aad adigu ku safaadaysid oo shaqajaannimada ah oo dhulboobnimada ah wax ay ku kaceen maaha madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed ee 21 sano Soomaaliya soo xukumayay wax kastoo laga sheegto wuxuu ahaa madaxweyne wadani ah dalka dhisay dadkana dhisay dhinac walbana tayadooda ka sameeyay Soomaaliyeed inta aniga la ahay waxaan maraynaa maalinta dawladdu ugu dambayso 32 sano dawladana ay soo 32 sano سواء وقتاي تيلالا يشوشو واي انتي كي كدعدي كان ديكتاتورية وحاسة وصفات واي لكن دولة يحي واوي صدن يلا بسنا كسوري طليانا يورتاغني مغوغا مجوج مالتاس يا مالما بدن كدنبيو بدن لا soo maray ma ay joogin haday tahay dhanac waxbarasho ilaa iyo baadiyaha ayuu geeyay jalayaal safarkiina maanta ah wuxuu ka mid yahay tababaradii badnaa ee in la idin mariyaay ahayd intaydaan gacanta ku dhigin mas'uuliyadda waddanka in la idin mariyaay ahayd ayay ka mid tahay inaad ku cilmi yeelataan aad soo barataanin ummadda aad gargaari doontaan ummadda aad u talin doontaan ummadda aad cadowga ka celin doontaan ummadda aad dugsan doontaanin ee dadweynihii Soomaaliyeed ahaa inaad soo barataan xeerkooda xamaaskooda dhaqankooda caadooyinkooda noloshooda iyo habka ay ku nool yihiin jalayaal intaas waxa ay soo raacda in yarawaana waxaad u socotaan waxa weeye miyi haddii kale waa tuulo waxaad ugu tegi doontaan dad aad iyo aad uga wanaagsan dadka aynu magaalada kula koolno waxaad ugu tegi doontaan dad aan aqoonin khiyaanada dad aan beenta aqoonin dad aan xanta aqoonin dad aan ajnabi iyo malafsi isticmaar aan aqoonin oo baranin dad Soomaali oo nadiif ah oo xalaal aad ugu tagaysaan waxaad ugu tagaysaan kuwo aad iyo aad inaga reer magaalka uga deeqsisan uga maqaabilo fiican martidooda iyo walaalahooda intaba aad u garta kuwa wax u taraya jalayaal waxaan idin xusuusinayaa dadka iyaga oo walaalihiina mar haddaynu guddoonsanay inaynu waxaynu dheernahay aynu sinno inaad aad iyo aad isugu taxallujisaan sida aad u taageeri lahaydeen ama ha ahaato xagga waxbaridda ama ha ahaato xagga caafimaadka iyaga iyo xoolahooda ama ha ahaato xagga hawlaha kaleeto ee la xiriira hawsheena tan waxaan idin su'aalanayaa in aad dhammaantiin ka taxadirtaan habka wanaagsan ee aad ula dhaqmi doontaan dadka iyaga ah waanuba iyaga xaggooda inaad ka heli doontaan cis iyo dhowrtaan lama iloobaan ku noqon doona intaad noloshiina intaad jirtaanin qofki kastoo adinka ah iskuul ilaa iyo jaamacad waliba qofka lacag la siinayo ayuu sameeyay
hadday tahay dhan caafimaad free uu sameeyey waxa uu sameeyey warshado waxa uu sameeyey iskuulaad mashaariicdii faraha badneed wixii oo dhan dhulkii danta guud oo uu sameeyey maanta adaa liqay inaad wax ku soo kordhiso iska daa adoo 4 sano jooga yaad ka dhex baxday wax allaala 21 sano wixii la sameynayay maanta aad baabi'isay eber baad ka dhigtay ninka ugu cayda badanna adigu ahaa ninka wax soo barayna adigu ahaa ninka uu dhaqaalaha geliyayna adigu ahaa ninka afkiisa ka sheegahayna adigu ahaa inuu lacag ku siinayay wax barashana ku siiyay waan sheegaa markasta ka magacaabisa inaan sheego aniga agoonaan ahaa aabbee anoo yurub dhintay hooyadii allah naxariistay isuu gurshay oo hooyo soomaaliyeed oo tuulo maxaan ku idhahdaa yaro meel ku taalo meel ku noolahay ayaa isuu gurshay laakiin maxaan ku gaaray inaan muxuu ahay nin professor oo jaamacaddan muxuu ahay hogaaminayo oo dadka aqoonta ay ku ixtiraamaan inaan noqdo maxaan ku gaaray dowladaan ku gaaray bas wiilkaas marka agoonka ahaa oo hadda sheekh la dhihi jiray يعني وحول بدولة داسيسي موقع تكسر وحلقة أطلسو محان كورادا كرسي الله فريستو قراسك الله فرديو وحول دا هو يدي وحيلك عاشي إن اليونيفورم كسوان شاكل اليونيفورم كان بسو هذا يقرأ العشرة نهيسيس دوكسو هوسان ساسو صوت بحي دوكسو دحان كوغانا وأوغا صوت بحي دوكسو ساران أوغا بحي جامعة لانكلي جامعة دي مركان قلي قضائي قراع سرير لبقى oo cad ay saaran tahay iyo beeso bishii halahan saabuunku gadan ilaahay igu daray marka jaamacadii sidaas aan noqday laba oo cad taday quraac iyo casho buu bas lagu qaado jaamacad lagu galo soo noqdo bishii uga dhamaato muxuu ahay beeso kaasha farta laga saaro jaamacadii ka soo baxay waa xasuustaa min loobin bishii Oktoobar 15 ayaa la dhawaaqay jaamacadda ka dhalashay lagu jiro waa dhamaaday bishii November 1 shaqaalan ahaa waa shaqaynayay 3 November bishaan qaatay noloshayda 10 sano markaan jiray ilaa meeshaas aan soo gaaray shaqaalan oo haddana maalinta dabaaliin waxaa la yidhi scholarship aad heshay shahaado saraad leedahay orbax 2 sano waxbarasho misaalkayga ilmahayga la siinayay gurigayga galana uga tegay waxbarashaan soo bartaa soo noqdaadan markana maanta waxaa maraysaa dalka ummadda Soomaaliyeed mid ka dhalan doona wixii xaq u lahaa dhulkii uu ku lahaa dawladnimada dawladda ay ku shaqayn lahayd ayaad cunaysaa maanta oo dana shakhsiyeed ayaad u isticmaalaysaa taa waa xaraan weey wax banaan ma aha dhihi maayo dadka dhulkii dawladda deganaa xaq bay u leeyihiin dhihi maayo laakiin waxay u baahan yihiin dib u dejin dadka markii dhulka xataa laga waxaynahay inaan la burburin oo la baabi'in oo dadka si xun loo gelin dadka la xurmeeyo oo dawladdu ay meel u samayso oo dhul ay siiso ay dadka dejiso markay dhulka dad dejiso ka bacdi inay dawladdu qaadato dhulka dawladda xaq bay u leedahay laakiin dhulka dawladda laftigeeda inay niman ganacsato ah ay qaataan xaraan weey wax jirana ma ahan madaxweynihii 21 sano wadanka soo xukumayay maalinta uu qabsanayay 2 guri buu lahaa asaga 2 guri ayuu lahaa asaga shakhsi u lahaa 2 guri uu lahaa Soomaaliya u hubiyay ummadda Soomaaliyeed buu u hubiyay madaxweynaha 21 sano wadanka xukumayay hal guriga Soomaaliya kuma lahayn Yurub kuma leh Arab kuma leh Afrika kuma leh adigana maanta dhulkaaga lama koobi karo ilaa iyo hadii la kuurayo Turkiga guriyaha aad ku wada leedahay islaantaada iyo qoyskaaga ha sheegin niyo Ilaahay ka baq oo waxaan waa cuqubo oo bari maanta waa adduun barina waa aakhiro waxaan aad daldalaysid xisaab baa qoorta la gelaysaa iyo dhibaato dadkan mas'uul ba Allah ka ah dhulka dawladeed anigu waxaan leeyahay cid allaala cidii hadda galata waxaad ku xisaabtantaa bari waa laga duduminahay dawlad sax markay timaado cid allaala cidii danta guud dhulkii ahaa gadatay nooc arabtid ahow waa laga burburin doonaa ha ku qamaarin lacagtaada kaasaasan leeyahay xataa haday dad kale ka sii gadgadanayaan qasaaradaas way ku imaanaysaa waa laga burburin doonaa wax magdhow ay leeyihiin male sababtoo tahay daalimiin Ilaahay ka furata way dad masaakiin oo hadda fadhiya oo ayaga wax la'aan waa si barakiciyeen oo xuquuqdoodii way ku tumteen oo inay dawladda dibadejin iyo nidaam ay u samayso way xuquuqdoodii dhan waa meel Ilaahay ku tureen dadka noocaasa bari xisaabtan ba dawlad sax markay timaado la xisaabtamaya xasan sheekhna waxa ogaataa dawlad sax haday timaado waxa ku xisaabtantaa xabsi dheer in lagu diri doono laguna maxkamadayn doono taasna ku bishaarayso
ummadda Soomaaliyeed dhibka ka daa madaxweyne nin oday ha tahay sida aad sheegtay nin aqoon-yahan ha tahay aqoon-yahanimadu ha ku barto dadkaaga iyo dalkaaga waa dhiban yahay dhibka sida aad uga saari lahayd intaas faham oo gaajada aad uga bixin lahayd faham oo ka shaqee oo dadkan maalba isleynayo oo reer hebel iyo reer shaydaan isku leynayo sida aad uga dhex bixin lahayd oo walaalnimadooda u tusi lahayd ka shaqee oo kuwan shayaadiinta ah ummadda qarribay oo dawladnimada iyo dadnimada midna aan ogolayn sida waddanka uga sifayn lahayd shaqadeeda qabo ha ku mashquulin adiga iyo naftaada iyo dantaada khaaska inaad meel walba dab qori daba aad ugu shidid taasna aday dhib ku tahay midka adiga intaas kugu jecelna ta awalba wax qiimaha u lahaa male laakiin xaqiiqada waxay tahay waxaad madaxweyne u tahay 12 milyan 20 milyan oo Soomaaliyeed ee qabiilkaaga iyo jifadaada madaxweyne u matid carabkaaga iyo calooshaada madaxweyne u matid intaas aad u tahay Mr. President waxaan jeclahay in aan ku weydiiyo shaqada aad qabato ta aad ugu jeceshahay runtii shaqada dalku ma kala leh mid la jecel mid gaar ah laakiin kulli baan waxaan ugu jeclahay marka aan hayo waxa dulbadiiba teegaaraya aan wax u taraya dadka agoonta ah iyo dadka Soomaaliyaanka oo Soomaalida dadka aad u liita markaasaan ugu jeclaa ama ninka aan shaqada haynin oo gaajaysan oo suuqa jooga marka aan wax la doonayo yaan ugu jeclaa sida runta hawshan qabanayaana ujeedada dheer yaana gunto ay tahay inay tahay mid ummadda Soomaalida wiilkii gunnimo ka furan doonta laakiin haddana waxaan moodayaa waxaan u shaqaynayaa wax qiimo weyn leeyihiin dadka Soomaaliyeed iyo noloshooda iyo xornimadooda iyo horumarkooda iyo wanaagooda inay tahay haddii noloshu ama dhib ha mudato ama yeenan mudanine mar haddaan hawshaas gobta ah randhiiska dambana u yeelanayo ilmaha Soomaaliyeed aan hayo dhibaatada ay soo gaaraysa maba kartaba maalinta un baa gudubta muxuu ahaa xisaabtaysu waxay ku fadhidaa maxaad maanta qabatay wax dadkii Soomaaliyeed wuxuu tara ma qabatay mise maalin si xun kugu dhaaftay bay ahayd aad waxaan u caroodaa markii aan dadka Soomaaliyeed wax tara aan maalintaas u qabanin markaasaan aad u caroodaa una shallaayaa maalintii dhaaftay oo aan soo noqon doonin Mr. President maadaama shaqo fara badan oo culus ay dusha ka saaran tahay maanta waqti kugu filan miyaad u haysataa caruurtaada iyo xaaskaaga waxaan filayaa inaad u wado war mas'uulka dalka ka saaran ka suko mas'uul aaciladeed baa ku saaran familygaaga mas'uul baa ka saaran si uu gudubta inaad leedahay baan qaba hadalkaaga su'aasha dalkaas inuu socdo caruurtayda iyo xaaskayga waxaan u sheegay markii revolutionka aan samaynay waxaan u sheegay muddo dheer baan soo dhaqaaleynay soona tabcayay waxaan moodahayay sidii habkii ugu wanaagsanaa inaan kusoo tabcay waxaan ku iri maalinta war wixii maanta ka dambeeya caruurta Soomaaliyeed hore ma wada shaqaynayaan kaliya idin shaqayn maayo marka wixii aad iga baahantiin idin la diyaar baan laakiin raajina isku filaataan markay u badato bishii 2 goor baan u tagaa haddii kalena oo hawshu ididana uma tago laakiin sababteeduna waxa weeye caruurta Soomaaliyeed oo dhan inaan u shaqeeyo waa goostay iyadaan ku shaqaynaya iyaguna waxay ka mid yihiin caruurta Soomaaliyeed aan u shaqaynayo mar badan oo hadee danahooda oo la kayga ah khaaska ah shakhsiga ah aan hadee wixii talaa iyo wixii taageera aan taageerana waa jiraan laakiin waajibka iga saaran iyaga iyo kan wadanka iga saaran ilmaha Soomaaliyeed iga wada saaran waxaan fadli yeelaa midka iga saaran dadka iyo ilmaha Soomaaliyeed waa inaad fakartaa kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi qofka wax uu mas'uul ka yahay waa inuu mas'uuliyadeeda ka soo baxaa aniga wacdi kale iyo aayad kale iyo xadiis midna ku soo qaadi maayo ujeedkayga waxa weeye inaan si Soomaalinimo ah oo nin damiir leh aan kula hadlo intaas kaliya waa ujeedkayga haddii ilaahay kugu anfaco warkaa ku gaarana hadda khayr hadduu ku anfici waayana adigu unbay kuu daran tahay anu intaasaan dhihi lahaa xasan sheekh dadka aad barakicinaysid oo dhibaataynaysid ka daa ummadda Soomaaliyeed meesha hadday dhul dawladeed ay degan yihiin dibadejin u samee dhulka dawladeed meel walba shaqadii ay u haysay dawladda ku howlgeli laakiin baaba aad dalka ku haysid oo burburinaysid oo dhaqaalihiisa aad cunaysid waxaan dawladnimo ma ahniyo waxaan dawladnimo ma aha isku xisho waa ceeb weeye inaad dhulkii qaranka oo dhan aad cuntid xaggee dawladda degaysaa marka macirkay degay waxaan dadka ciyaalka iyo dadka maxkamad lagu sabahay ha dawladda hawlo badan iyo new muqdisho la sameynaya waxayaan dadka lagu sabanin yaa aqliga lan kaga qaaday new muqdisho aan sameynayna ma aha khalad weey
نيو مقدشة وحي هورو دولتي هوري سيستم كي هانتدي دولة أيضا تحلو وحي عصبة أديها تكسو كردين تكسو كرد لكن دولة هورو وحي أي سمايسو دالك يدادك أسمايسي حلقين وحا أدو كسو كردين هالار marka waa la dareemi karaa ujeedka aad rabtid inaad waxaan dhan u baabiisin waa la garan karaa cidi aqli way garan kartaa laakiin wax isku falbaan dhihi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh